بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال ميل كاستا oo aad joogtaan kulanti wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkii toddobaadlaha ahaa ee diiradda kalsan oo toddobaad kasta hadahan oo kale aad ka daawataan telefishinka caalamiga ah ee kalsan barnaamijkeena diiradda kalsan ee toddobaadkan waxaan si gaar ah aan diiradda ugu saari doonaa isbedelada iyo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka soconaya geeska Afrika gaar ahaanna dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea iyadoo madaxweynayaasha dalalkaasi dhawaan ay ku kulmeen dalka Itoobiya magaalada Bahardar lana filayo in mar kale kulanka labaad uu ka dhaco magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya barnaamijkeena waxaan ku falanqayn doonaa bal isbedeladaasi iyo waxa ka dhalan kara dan ma ugu jirta ummadda Soomaaliyeed mise dhibaato ayaa laga yaabaa in mustaqbalka ay ka soo wajahdo danaha ummadda Soomaaliyeed maxaa keenay in dalka Djibouti oo ah dal ka mid ah dalalka geeska Afrika uu ka maqan yahay dhaqdhaqaaqyadaasi yaase ka dambeeya isbedeladan soconaya ma mid Itoobiya, Soomaaliya iyo Eritrea ay horboodayaanba mise waxaa jirta gacan kale oo saddexaad oo daaha gadaashiis ku jirta taa oo laga yaabo in hawshaas oo dhan ay maamulayso barnaamijkeena arrimahaas ayaan ku eegi doonaa toddobaadkan waxaa igu marti ah oo ila falanqeynaya ustaad Cabdiruus Maxamed Cabdi Afsagaaro oo ah falanqeeye arrimaha siyaasadda dhaqanka dhaqaalaha waana gudoomiyaha hay'adda Media for Peace ama warbaahinta nabadda mar kale waxaan jeclahay inaan iraahdo bal ku soo dhow TV Kalsan iyo barnaamijkii diiradda sidaan ka warhayno toddobaadkan iyo ka horba ilaa iyo markii ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu qabtay jagada ra'iisul wasaarenimada ee dalkaasi Itoobiya waxaa muuqanayay in isbedelo badan ay ka dhacayaan geeska Afrika dhawaanahan waxaad maqlaysay hadallo ka soo yeerayay dhinaca iyo ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed oo qaarkood xitaa dadka qaarkood ay ku beereen dareen laga yaabo in ay isleeyihiin waxyaabo keeni kara in dalalkaas ay qaar kale ay liqaan ayaa iman karta ay ka hadlayaan iyadoo kuwa kalena ay ka maqan yihiin sida Djibouti oo kale oo aan qayb ka ahayn bal guud ahaan waxaad warbixin naga siisaa dhaqdhaqaaqyadaasi iyo waxa ay daaran yihiin hadda waa arrin muhiim ah isbedelka ka socda geeska Afrika maanta duruufeedu leeyahay waxaa laga gudbay arrimo aad u waaweyn oo ahayd Itoobiya iyo Eritrea waxa u dhaxeeyay wax yar maahan sida fudud ee loo maxkamadda adduunka oo gashay xataa loo hogaansami waayay si dramatic ah waxaan u aragnay marka in intaan laga gudbin nidaamkii xukun ee Itoobiya ka jiray first time markii ugu horeysay in Oromo xukunka Itoobiya si silmi ku timaado iyadoo dagaal ku jirtay iyadoo siyaasad ku jirtay iyadoo EPRDF ku jirtay in xisbigii kale EPRDF qoladii hoggaanka u ahayd hal mar ay si silmi ay ku wareejiyeen waxyaabahaas oo dhan markaa fiirisid Soomaaliya waxa ka sii khusaysan intaan dalweynaha Soomaaliya la gaarin Soomaali weyn magacii ah oo muddo in ah la geliyay waqti iimaan iyo dad iyo naf loo laayay Itoobiya tihiin Soomaali ma tihiin astaantooda la bedelay wixii ay samaysteen in sideedii lagu soo celiyay oo la yiri waa Soomaaliya tihiin kilil five raacsan hadda ilaa Somali State of Ethiopia inay tahay la siman tahay Itoobiya inteeda kale laakiin isnaga Soomaaliyeed ma ahayn kursigaas iyo taladaas iyo bolosigaas dad yimid shuftaana loo yaqaan sharafteeda iyadan leedahay saddex Soomaaliya markii la yimaado Soomaaliya waxay ka mid ahayd Muqdisho go'doon dadka halba jooga inta federaalka ah heer baarlamaan heer ra'iisul wasaare heer madaxweyne go'doon Allah waxa go'doon laga ahaa Itoobiya waxa laga karkarinayay waxaan u socdaa Itoobiya 5 maalmood soo joogaya Jubaland iyo Puntland iyo Soomaaliland
wala wada hadal la socdaan waxay ahayd martac iyo goob la iskaga hirto laga jeeyay Soomaaliya oo hadii adiga aan wax isku dhacna xataa Ethiopia hadaysan arintaas goob joog ka ahayn anagu galmeen adiga isdirin gaalkacay labeer dhinac dadkii wada deganaa isku mid ka ah mid kasta iskaga dhawaa in ay yiraahdaan dawladda dhaxana kuma tirsan qolka Ethiopia inay ogolaato maan Pontifex ma jiro in Ethiopia markeeda hore soodar lagu sameeyay in ayada hadan dadka u yeerto laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa waa barnaamijkan ugu dambeeyay ee Soomaaliya Ethiopia Eritrea in isbedel ka yimaadaan istiqlaal laakiin mawduucina waa inuu ahaada Ethiopia Eritrea iyo Soomaaliya wax kula waxaan loo yeerin jiray Pontifex kan maqlis maanta ku jarrabanahay Ethiopia mid ka dhalatay soodar ka dhalatay maanta waxa timid in istiqlaaliyo ilaa xada loo ogol yahay dawladda federaalkeed ee Soomaaliya kumarkay ka soo baxan lagu muujiyay in maamul goboleed Soomaaliya kamid uusan ka haysan fasax uusan meesha raba aadi karin in Soomaaliya dalkeeda mid uu yahay ay iska ictiraafsan yahay waxa meesha ka soo baxay marka waxa Djibouti ku dhacay Djibouti saddex arrimood haysta ninka Afrika xuduudeeda sida gumaysi uga taga lama taaban karo aadan cadaasho uga baxay Cabdirashiid uga baxay Maxamed Barraa ku duulay oo xuduud ka gudbay qadiyada kamid ah sanay dadkii saas aha Ethiopia saas ahay ninkii jabiyay ee xorriyad qaato afwarka liiraado oo xuquuq hal maalin xataa aan sameeynin xataa referendum doorashadii ma ogi dastuur sameyn doorasho sameyn intaan ku dhaganaa nidaam kasta lagu jabwaay xariish kur Yemen dhulka soo goos Djibouti dhulka soo goos Ethiopia baadheysaan ambasa ninka wuxuu noqday nin xuduudul xorriya hay'ad xorriyada haddaan la loodin waayay ninkii asaga ahaa marka Ethiopia isku dhacsanaayeen oo Ethiopia facility Djibouti siisay qaniinay gurigeed u tagnay labo dekadaas Djibouti waxay tartan weyn la gashay infrastructure fiican sameysay geeska Afrika iyo Soomaaliya intii burbursaneed intii Djibouti intii Eritrea maartay takoorka ku jirtay oo maartay intaas oo dhan waxay ciyaaraysaa role ayada la feta la dhabar u tahay isagaas marka xisaabtooda iyadoo la dhameeynin iyo haddana waxa soo galay Sacuudiga iyo Imaaraadka waxba ka macnaa ma aha shirku isku geey shirki u dambeeyay loo yeeray maartay loo yeeray ninka odaga ahaa khayre wax kala ma aha wax laga hadlay Djibouti xisaabba ku maqan Djibouti wixii wadama Arab ku lahaa walaalna ku lahaa way lu goynayaan Soomaaliya way lu goynayaan Soomaaliya waa laga maarmooy Djibouti way ka hoosaysaa Djibouti lako laga maarmooy Soomaaliya meel ay Djibouti maanta ka soo qaadi kartaa way ku adagtahay iyadoo teeda horta u istaagin Djibouti marka terminihii Eritrea waa ku dhagantay qoladii la safan lahayd ahayna masaalixdeedii way gaartay waxay rabtaa waa u soo laaban doonaa faahfaahimadaas hadda Djibouti sigaar ugama hadlayna hadda Djibouti sigaar waxaan ka hadlaynaa waxay tahay bal hawshan hadda saddexdan madaxweyne waa madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo madaxweynaha Eritrea ay hadda halkan isugu imaanayeen waxyaabaha ay doonayaan in ay higsadaan iyo qasadka ay leeyihiin maxaa kamid ah saddex waxyaabo saldhig ah waxyaabo higsanayaan koo in horta la iloobo cudur fara badan hurgun fara badan sida cagjar oo kale loo geeyo shirki oo loogu qayb galay kale laga qayb galay mashaakil jiro oo Soomaaliya Ethiopia u dhaxeeyay oo dagaaladii ka dhacay ma ognahay in horta la tirtiro xumaantaas iyo dhibaatadii weyneed ay jirtay in bulsho ahaan dadka isu soo dhaweey saddex ganacsi iyo faa'iido dadka in la tuso oo ah Soomaaliya waxay leedahay biyo bad la yiraahdo oo sharci caalami ka dhisan yahay waa dal sovereign state ah nidaamka ka jira wax walba bixmutirka la isu furo in aysan dhacaynin mar dambe maartay Shabeelle iyo Jubba oo kale faragelintii iyo wareerka la gelin jiray in maartay waxyaalo fara badan ka qarrimi jireen qardaraba ku aad shuruucda caalamiga ah haddana waxa imaanaysa infitaax weyn dhacasna ka imaanaya ugu dambeyn ma aha Soomaaliya iyo Eritrea iyo Ethiopia arrin iska wataan oo sami ayaga ka soo degtay behind the screen behind the scene loogu jira waxaan ugu jira adduunka qaab u shaqeynaya
oo globalization u shaqeynaya maslaxadda la kaleeyay dana la kaleeyay dagaalku waa sii yaraanayaan waa rehabilitation oo wax wada qabsiga oo Afrika laga rabo waa tahay Ethiopia marka laga hadlayo waa dan aan xeeb lahayn aan bad lahayn dekada lahayn waxa uu ka faa'iidayo waxa la oran karaa waa in uu isticmaalo dekadaha Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dalka Eritrea hore sidoo kale Ethiopia waxay u isticmaalayeen dekadaha dalka Djibouti ee walaalaha aynu nahay danta ay heli karaan marka ama ujeedada ama hadafka ay leeyihiin Soomaaliya iyo Eritrea muxuu noqon karaa Eritrea iyo Soomaaliya sideedaba markii nidaamkii cudwaanka ahaa Eritrea waxay ogtahay haddii Soomaaliya cageedu ku istaago Soomaaliya noqonin in aan heshiiska lala geli karaa oo daciif yahay kaligeed dagaal uma taagnaan karto Soomaaliya waxa noqota adna faa'iido anna aan faa'iido wax dhiba ma laha 200 milyan oo qof dad gaaray كليل 5 كلية يورما كليل 4 والله ما قولوا إنسان سامر يورما بربرة استراتيجية وتكذا كان عسكري رقيست مركي لقى كينا يو أسمرة أم ديك العصب لقى كينا يو بربرة وقولوا هرجيس بربري هرجيس ويسجل وقلنا جيجي هرجيس وجال وقلنا ونص ساعة تنو والله بس مركي قاري هرجيس بربرة كسر دقيقة أنتوا كليل 5 ما نقرأ over 6 مليون تكنتها over 15 to 20 30 مليون وحي تجري عفر مارتي بالشقول لسينيو عصب أودو وحي لسينيو مارتي وردير الليبان وحصوكلته كل الكون محوات وحي لسينيو إلى يو شني لماش وقفه هبيو مركا ودكذا إثيوبيا دكذا قرش كايرانا سبير كايرانا باورتا سعر كايرانا بدعة يا جبس لكن مركا عصب لقى كانوا أو شني اللي لقيه يا مركا لقى كانوا هبيو اللي جيو شني له يا مركا هرجيس أنت بربر لقى سوق هذا جيج اللي جيو أو اللي جيو أورمية اللي جيو خرج كان وايريه سبير كان وايريه بس كل سوى جيبوتي ولا مثل جيبوتي ولا مثل لكن واحد دباتات على واحد تاني دكدة اللي هذا بربرة يدكدة اللي هذا هبيو بصاص حوار لوقي كي تطلب كل كلمة الألسة حتى دكدة كسمايو وحياد يقولوا ذا قبل هذا الليبان زورنا يقولوا ذا مركز دنا سوجرة لابو شعبك إثيوبيا أو سومالي سوق بجان عسى قشطان شعبك سومالي أو تجان عسى قشط وحقتان أو investment لفت التجارة عندك ناي فإذا هالكار إسماعيل وحوجوجا شن بقول أو تركتر هالكار شن بقول أو تركتر شن بقول سكون وديسكرا ما سومالي وحي قدرة كاريال بس وحي قدرة تركتر أو معايا أنت مارتي 8 أنت على فقط في 6 مليون هكتر دولا كنت هسا كجرتا سيدا كلا سومالي ضد وحواي استعماله وحوا أبي وخرج بديه dadka Ethiopia كان هذه ويهين dad waa ku dhageeyeen isdhaqgalkooda xataa waxba u kala faa'iideeyay waatay mid kale marka la isweydiin karaa dad badan oo arrimaha falanqeeya siyaasadda geeska Afrika waxay leeyihiin fudeed baa ka muuqanaya marka la eego cadaawadii gaamurtay ama taariikhdii soo jireenka ahayd ee Soomaalida iyo Ethiopiaanka u dhaxaysay gaar ahaan ilaa laga soo bilaabo taariikhda inta hadda casriga aan la soo gaarin Axmed Gurey ilaa iyo wixii ka sii horeeyay amaba iyo ugu dambeyn wax ugu weyn waxay soo bilaawdeen oo xilliga Axmed Gurey iyo manalixyadii iyo wixii ka dambeeyay ilaa Hayle Selassie ilaa Mengistu ilaa Meles Zenawi oo la ogyahay intii uu noolaa dhibaatada uu ku hayay Soomaaliya arrimaheeda iyo fargelinta inuu ka shaqeynayay in Soomaaliya dib dambe aysan cagaheeda isugu taagin la kala qaybiyo la kala qoqobo la dhibaateeyo isagoo aaminsanaa ilaa inta Soomaaliya ay kala daadsan tahay inay u tahay fursad Ethiopia inay sii horumarto dhaqaale ahaan iyo dhinac kasta aqoon ahaan iyo wax walba marka iyadoo waxaas oo dhan taariikhda soo jireenka ay qorayso in si sahlan oo aan ka fiirsi badan lahayn in heshiisyo la iskala saxiixdo Ethiopia waxay horseedi kartaa baa la leeyahay in Soomaaliya dhibaatooyin ay ka soo gaarto Ethiopiana damceeda ugu weyn uu yahay sidii ay bad ku heli lahayd ha ku hesho ama xoog ha ku hesho ama xeeladaha ku hesho wadamada qaarkood waxaa dhici karta in heshiisyo si fudud lagu galay hadhow la burin waayo oo in ka badan qarniyaal ama 10 sano heshiiskaasi in laazim lagu ahaado ay ku qasbayso marka dadka oranaya sidaan sahlan hadda ay
dowladdan madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre ay u muujinayaan niyad sami xad dhaafa oo la aaminsan yahay in xadkeedii ay dhaaftay ama xilligeediiba aan la gaarin ay u muujinayaan Ethiopia dhinacan xuduudka markaan ka hadlayno ilaa Soomaaliya anaga iyo Eritrea xuduud ma laha waxay horseedi kartaa baa la leeyahay in ay god ku dhacdo Soomaaliya oo arrimo hadhow cawaaqib xumo keena in loo hoosgeliyo laga saxiixdo oo dhibaato ay ka timaado tusaaladan u soo qaadano hadaladii hadda uu ku hadlay Abiy Ahmed waxa kamid ahaa in mustaqbalka Soomaaliya iyo wadamada Geeska Afrika ay hal dal noqon karaan ay midoobi karaan oo hal madaxweyne yeelan karaan hadallo noocaas oo kale ah marka arrimahaas shaki intee la eg ayaa ka iman kara qatar intee la eg ayaa ka soo wajihi karta Soomaaliya haddaan laga fiirsan heshiisyada noocaas oo kale ah oo sida xamaasadda iyo laablakaca ku salaysan marka ugu horeysa Soomaaliya ma gafi karto dowlad transitional camal oo aan dastuurkeedii nidaamada naga dhiman annaga dowlad ahaan ma geli karto heshiis gaarsiisan ayaha Soomaaliya iyo ayaha Ethiopia ayaha Ethiopia maanta ma degan yahay maya ayaha Eritrea ma degan yahay maya ayaha Soomaaliya ma degannahayo jabkana gaaray inaan ka kabalno miyaan rabnaa asaytiin dowladda iyo maamul goboleedyadu isku jaamo u jeesiyeen waa maya aqliyadda marka kama maqna madaxweyne prime minister ra'iisul wasaare in adigu oo aanan buuxinin oo aanan dalkaagii sharciyadiisii horta aan salaynin referendumkan loo codeynin in la qaadanayo nabad guud aan qolo kasta lala gelin isla markaana hurgunta noo dhaxaysa annaga Ethiopia waxbay sal ku haysaa waxay salka ku haysay qaacidooyin laba qaacidaa jirta Ethiopia u taal oo ahayd kan ku raacana dulayso kan ka maqan waligaa dagaal kula jir heshiisna ka raadi ka heshiis ka raadinaysa aada kan ka soo horjeeda kan kula socdo markasta waa daciif waa خائن واسكو فري اهيد تي لبادي هاد او غدبين معناها ددك markasta u taagnaa soo horjeeday ilaa shanay tooda iyo tamba in wax la qabsado wala soo gaaray saddex waqtiga maanta la joogo Europa oo 50-yaski dhisatay EEC hal madaxweyne maraha waa wali waxay taagan EEC isbaahis EU taagan yihiin حاملنا سجليدا يبيرليدا وليس دقن فهم صدح waxba ka dhiman Ismaaciil Umar Geelle naftirkiisa taa oo salaam doona Jabuuti higa gelin su'aal kale wali aan tusaale kale okay su'aal waxba ka dhiman su'aal kale ay taagan ma afwarq waxba ka dhiman midda hadda aad leedahay teeda ma sharciyoobi karto iyadoo gudaheeda ka sharciyo tusaale kale aan ku siinayaa dawladii kumeel gaarka ahayd ama kumeel gaarka markaas ka baxday ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo xilligaas ka horeeyay Sheekh Shariif heshiisyo ay gali jireen tusaale waxaan u soo qaadanaynaa heshiiskii ama wixii lagu yeeray isfahan memorandum of understanding wixii lagu tilmaamay dhinaca badda ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo xilligaas wasiirkii ahaa iskaashiga caalamiga ah oo la saxiixday Kenya oo la saxiixday taasoo ilaa hadda shaki iyo khalqal ku haysa badda Soomaaliya oo Kenya ay ilaa hadda sheeganayso in qaybahaas ay leeyihiin badda Soomaaliya kamid ah Kenya ay leedahay ilaa hadda maxkamadda caalamiga taagan marka maxaa diidaya in sidaas oo kale waxyaabo dahsoon oo hadhow Soomaalida cawaaqib xumo aad u baan ku reebi karta in uu si sahlan u saxiixo madaxweyne Farmaajo u saxiixo oo loo hoosgeliyo iyadoo xamaasadda iyo laablakaca ay ku badan tahay markaan fiirino marka aad u fiirino madaxweyne Farmaajo iyo Abiy Ahmed labadaba waxaad u malaysaa inay aad u xamaasadaysan yihiin xamaasad badan ay ka muuqato daacad ha ka aato Abiy Ahmed ama mid uu doonayo in ummadan kale ilaa qofka markuu qoslo aad u qosasho waxaad ka filaysaa inuu ka daba qoslo waqti marka xamaasadiisa haday doonto ahaato mid jiliin ah oo u jilayo Soomaalida oo muujinaya niyad sami iyo waxaan oo kale ah laakiin lugooyada uu la dabacsan yahay laga yaabo in mid qarniyaal ama boqolaal sano ama kumanaan sano raad reebto inay dhacdo soo suurtagal ma aha markaad ka eegto heshiiskii sida sahlan lagu tilmaamay memorandum of understanding in isfaham uu ahaa kaliya badda la kala saxiixday Umar Cabdirashiid xilligii ra'iisul wasaaraha
iyo wasiirka xilligaas uu ahaa cabdiraxmaan cabdishakuur oo ilaa hadda arrintii ay maxkamad taagan tahay aan kaaga jawaab saddex arrimood jumla wa tafsiilan taas ay ka tan kaga duwan tahay akhlaaqiyan iyo conductiyan iyo mas'uuliyan meel ka dhacay ku tala gashay ee dawladdaas in cabdirashiid madaxda uu ka ahaa waxa uu sameeyay wax baarlamaan bay saxiix macna la'aan mustawa wasiir aan baarlamaan la keenin tii berbera oo baarlamaan la keenin oo markii dambe ay soo saartay imaaraadku ay tiri waa kan xasan sheekh intaagan waa kan siilaaya intaagan waa kan cabdirashiid intaagan u yiri oo la yiri wax baarlamaan la geeyay ma jirtay jaamacadda carabta EU hadin UN hadin Soomaaliya waa mid waxba kama jiraan badeeda dhulkeeda waxa laga xukumaa dawladda federaalka la yiri tan marka way ka fogtahay khiyaano oo horta lacag lagu kala qaadanayo ii buuxi kiishka horta taas wax dadka dilay labo maxkamadda adduunka markii la soo gaarnay Kenya waa imaan weys maxay ku imaan ana ka dhamaysan ana ka galnay khiyaanadii daba socotaa taas waa ka soo maxkamadda xukunka horna waa ku dhacay hadii imaan weysa kan labaadna waa ku dhacaya member understanding oo mustawa wasaari ah ma aha mid legal ah mar hadii mustawa baarlamaan aan laga tasdiiqin tan marka hadaan u soo noqdo ee hadda socota runtaa war in ay fudeyd u fiiliyaadnimo ay ka muuqato waliba marka shirka laga soo kala tagay uu jaamacaddii Bahardar u akhriyay uu yiri hal dawlad noqon karnaa aad uga fogtay aqliga caadiga laakiin meesha maxaa yaala Soomaaliya goormay la saxiixan kartaa yool dheer iyo yool gaaban Soomaaliya naftirkeeda inta u dhiman way garanaysaa basiska dawladnimo ku taagneed maamul goboleedyada si u kala daadsan yihiin Soomaaliland saan kala daadsanay aqligana ma gasho in communique la soo saaro Soomaaliya waa mid wadamada geeska Afrika waa ka midaysan yihiin iyaga waa ka midaysan tahay in hal dawlad tahay ayay u taala in waxa soo dhan waa guul siyaasadeed laakiin nusqaanteedii leedahay nusqaanteed u leedahay in la fiiriyo in Bahdarna lagu wada shiri karo in farmaajo u barbaratay kan Muuse Biixin Axmed Imaan Karim qofka caadiga ah waliba waqooyi ka sii socdo in la jabiya loo baahan yahay arinta bariyaraha noocaas oo kale taa tadkaas abta noocaas in la jabiya loo baahan yahay isku soo wada xoori inuu talaabo weyn qaado oo noloshiisa ku soo gabagabeeyo rabaa ninka afwarka la dhaho dib in ku filna waa soo maray xukun ilagna waa soo maray nidaam intuu sameeyo geeska Afrika oo nidaama oo degan oo Bahardar waxaan diray baadho meesha maxay casab tariin ka soo bilaabanay Kismaayo inuu tago wax weyn ku jiro guul in tariinka xamar ka bilowdo oo la libara tago wax weyn ku jira laakiin maxaa ka horeysa ummadan isku cabsiinayo isdilaysa inay isfahamto tan waqti qaadan waa tahay markaan ka eedno dhinaca heshiiska lagu tilmaamayo inuu yahay heshiis geeska Afrika ah geeska Afrika markaan ka hadlayno ama Horn of Africa waxa loogu yeero waa dalalka Soomaaliya, Djibouti, Eritrea iyo Ethiopia intaas waxa la isku yiraahdaa geeska Afrika ama Horn of Africa qarnu Afriqiya heshiiskan hadda lagu tilmaamayo geeska Afrika waxa ka maqan Djibouti ayaa ka maqan dadka siyaasadaha falanqeeya waxay leeyihiin sababta Djibouti ay uga maqan tahay waxa ay tahay in arintan hadda ka soconaysa isbedelada ka soconaya geeska Afrika ay si dadban ugu lug leeyihiin dalalkan Carabta gaar ahaan Imaaraadka iyo Saudi Arabia Imaaraadka waxaan ognahay shirkadii DP World Imaaraadka laga lahaa iyo Djibouti inay isku dhaceen oo dekadii laga eriyay oo hawsha hadda dekada ay maamulato dawladda Djibouti dacwadna laga gudbiyay Djibouti oo in macnaha khalad ay gashay lagu xukumay wax noocaas oo kala marka waxa la leeyahay hawshan in Djibouti laga saaro waxa ku lug leh Imaaraadka Carabta ku lug leh Sacuudigana wuu la og yahay dadka qaar saasay leeyihiin marka ma la oran karaa hawshan oo dhanba ma ahan hawl isku haleyn karo maadaama fikirkan ama hal abuurkan uusan ahayn mid madaxda geeska Afrika kaliya ka yimid laakiin dalal kale ay gadaal ka taagan yihiin qaarkoodna ay cadow ku yihiin dalalka sida Soomaaliya iyo Djibouti oo kale midda rasmiga ah oo aqliyada caadiga ah siinaysa waxay tahay in Djibouti iyo Soomaaliya mustawi la rabay xiriirkooda iyo in arrimahan uga wada mideysnaadaan ma ku dhagan yihiin mustawi la rabay ee walaalnimo ma u shiraan
soomaaliya macduur waay jabuuti khibrad haddii noqoto da haddii noqoto ismaaciil cumar geelle waa madaxweynihii soomaaliya ismaaciil cumar geelle waa walaalkii soomaaliya dalkeenni iyo dadkeennii waay inta uu qabtay iyada oo lala soo taagan yahay xabado oo xasan allah naxariistay Maxamed xasan geelle markuu madaxweyne xasan uu meesha ka baxay isna dardaaran buu uga tegay waxaan Cabdullaahi Xaja Wareys maxaa sanada kadib xasan guuleed xanuunkaadi ka war xanuunkaada waxaa ka daran buu xanuunka Soomaaliya ilahay laakiin Ismaaciil waxaa rajaynayaa inuu wax ka qaban doono Ismaaciil ficlan wax buu ka qabtay شيء عجيب وصومالي وقفت وحي ولا الموجين وموجي لكن مدحون إسماعيل حلو بانيا إنه استعماله أكثر سياسة أنتو استعمال تي ولا المدي وصل الصومالي لقرب تاجنا إنه سياسيا ولا ما أنت ولي حدود أنكوينا ده أنكوينا لكن هذا محل لوتريا ما أنت وين كان اللوتريا عنك وحي كتب وحي كوري بقول كسر دي ودعنا مدحون إسماعيل أنت اللي الربيع إيمانا يا حمر مدحونا إسماعيل أنت اللي الربي مو يارنا يا ولا ليس أما برامج ترى أما كناه وكجاب يا ناس لو ما نبان سومالي مجارسي سنتها إني ميس أنت تكتب جبوت سنة هذا لويل أنا كانوا كمجر مجوك تبوس كده معذور أود اسمها أود اسمها هذا أساسي أو سومالي لا يراه أما قومية الصومالي ملكة تكون جرت أنك ضدك وحنا كلي نين مذولود يبانا أنا عدام وقوميسن كرا لكن نين مذول يديبا ملكة دعي وحكوين قوميستي إيجا تجي أنا فرنسيسا هيستن عضا وحامان تهيست إنه وحكتر لا هذا يصير قدر وقال بركي لو قدامي وحبا كمان ترى سلقي مراكن مش كويالي تتساس لو قدامي وحبا كمان ترى جبوتي سلقي يدي كويالي دون كل صفني أيوة يهود وكيل كإمارات oo shaytaankii umada loo bixiyay inay binzaay ayuu wuxuu gaaray inuu caytamo Jabuuti sharaf ay ku tahay shaytaan arab in hadii gaajeysan tahay xataa ay ku gaajeysan tahay marfuuc ras ee Soomaali tahay oo afar walaalhood ay wadanka la wadaagaan ayuu dhulka yaal wuxuu ku hadlay ogin Jabuuti halkaas way ka sarreysaa Jabuuti waxaan ugu filan inay shabeellaha hoosta u xirta ka beerta ku filan xataa khudaar xataa raashin ku beerta ku filan gobol باهيديس أن دبولي كرنا ولا عليهم لكن اسمعوا وحياة يتعسر قلبه وحيتها ولا فرماجو ولا برايم مينستر خير بوخشويكي الربي تنسيقي للربي موضان إسماعيل موضو لكن جبوتي شعب كذا الصومالي شعب كذا قف صومالي ساس ما أنت الله مطعم قال إسماعيل كور والله وحكدي يسا حدودك والله فرع وجود بيسا قول نوسو يتوا waxaa ku dhagan marka Sacuudi muxuu ugu dhagan yahay dal gaar u kaliya maaha ninka wadanka maanta haysto oo boqorkan mutahawirka Maxamed Salman wuxuu sameeyay aan ognahay yaa wuxuu ka amar qaataaba in doolahan shaydaanka carabta oo inay sheegto ka amar qaataa Jabuuti go'aan kan gaarna la gaarina san Soomaali Imaaraat uga xarrimna looga xarrimaya waxay dhahan kartaa waaqid laakiin waxa weeye waxaa is cunaysaa libaax waraabuhu iskama tiraado Soomaaliya is cunaysaa qabiil is cunaysaa ismaamul is cunaysaa ayadoo laba dawladoodana tansiiq reemo dhaxyaan waxa Djibouti marka taakadan lagu hayo ee loo go'doominayo waxay tahay in lagu adoonsadaa bal rabaaba yuhuud kama marna carabna kama marna carab maxaa naga soo galay annaka Djibouti أيضا شركة الصومالية مثليسا أنت مصر إسلام واحد بدنا كده وانتهي أي كلا جويسة شركة صادرة مركان كان مدن جيبوتي سكون عرتل سكون الصومال وكو بدنا يحمر كسر الدجيل نكى نفسجود أسرائيل نكى مارتي سمير حسن قال كعرب جامعة الصومال وهي يعني أنا كنت جيبوتي فرنا للديدي تياردي الله صادر الصومالي سو حسين عديدي الله دي ومظاهرة عندنا نوجي سمعنا عمل قال المركز وورلورد ماله صار Soomaaliya meel isku keenay hatta walaalka la galgalashiisa loo diiday Djibouti laakiin hada sababta loo haysto waxay tahay un dagadan DB World kibir Imaaraadka ayagoo qurno gaajaysan Djibouti weligeed ma gaajoon Djibouti maskiin kursan dhijir Itoobiya dhan nuskeeda saarnaa kilfaaf nuskiisa saarnaa Soomaaliya taga saarnaa Djibouti waxaan xasuustaa guriga wax lagu cuno waxay leedahay marti Soomaaliya ibarti waxay dadka masaakiinta Itoobiya waxyaaba aan jeclaystay kamid Djibouti oo kaligood wax cunayno imaanayaan masaakiintina dad marti oo leeyahay Djibouti marka taas ma la dhigi karaa ay koobaysan وبين كشكل تاس مركز مدحون إسماعيل وحقو إيرانيا dalkiisi way dalkan
دلبادي أنا حتى كما هذا وروق عدان نوين فما جون كون خير نو كوين سنس أصلا بروتوكول صوم رحنا كده كرا أما ديك الإيمو وأتجرا فرماج أنا واحد قصوم رنوك فرنسيس أقول برا جيبوتي لكن سو لما ركروا تعرفت كده واحد يرجف أما خلط حق الدبلوماسية أو مدحوين فرماج أو قلي مركي يقول الرئيسي يكدجين إريتريا أو سي دقدقة أو كل واقعي إن cunaqabatayntii saarnayd Eritrea laga qaado iyadoo dhulkii Djibouti laga qabsaday maxaabiistii ilaa hadda maqan ee Djiboutiyaanka ah iyadoo uusan ka hadlin inuu soo hadal qaadin haday ka tahay xogaalnimo la'aan waa yeelkadeed laakiin taa laftigeeda soo gaf maahayn nin walaalka dhulkiisa haysta dadkiisii ama ciidamadiisii uu ka qabsaday ilaa iyo hadda raq iyo ruux aan lahaynin in si ka fiirsi aan lahayn la yiraahdo cunaqabataynta laga qaado Eritrea iyadoo adoon dhihin xitaa Eritrea laga qaado cunaqabataynta iyadana ka baxdo dhulka ay sharci darrada ku haysato hana wareejiso maxaabiista ay ka hayso dalka Djibouti taa markaas lama oran karo laftigeeda waxay keentay niyad xumo ah in walaalahan Djibouti sidii ay shalay ay noogu liseen in aan loogu hambayn aan ku warramo Djibouti فرنسيس أقول بريرنا كده. لكن هذا حلقي ما تقنا. ما ده هذا يواجه بجوكتو. وحنا قالي إن أقول برير كرنو هو عالمي أقول برير كرنو. كيف كاس أنا أوه صنو مسؤول تقال ما عقلي أنا ما قشوا إنه معينا فرماج ميس كمان كلا وضع فريو وكارسين أرتاس كادو لكن طبعا يتيو أنا كقاعد ذكرنا يأول أنا كقاعد ذكرنا وين marka anaga baac dheer aan ka laakiin culayska maanta Eritrea saari karto muxuu yahay wax weyn Ethiopia garanay oo xuduud baan leenahay wax weyn Djibouti taas culays ma ku filan xuduud lama leeyin laakiin dhibka maanta Djibouti aan u tirsanayno qof walba makhluuq sharaf leh oo Soomaali ah oo ka xun yahay taas dhib noogu filan teena saar leh annaka saari karta xagga iska dhig waxyaalo badan aan u tirsanayna naftirkeena laakiin midaan hadda Eritrea Djibouti yeelayso xamar Ismaaciil ma xasuustidna markii Djibouti Eritrea soo weerartay حمر دجال كسعد موجودنا أنا جوجنا دجال كدحلين هاي حرت واحد تجينا جيبوتي مركز قصة نقولنا تهنا بلعبنا واحد بطولي معنا قفك الصومالي وحمر جوج جيبوتي إسجلوا محيرش هذا وتوا شعب كي توا بولشة شعب دولتنا لكن سياسيين تبرك غير وحكنا عقلات بولشة أنا راني وين جيبوتي مكلوك مرنا وحن دلك سوى دتك سوى دتك وصل سوى دتك صوت سوى ما سووا فانا نطاس لا شكر على الواجب إسماعيل توس ماذا يوم إسماعيل بروتوكولكم إيمانه حتى إيمانه يا أخ ولا لماذا وحموت السنة ما إثيوبيا صومالي مقلوق بحياتها مفتر كيسة لابو إيرتريا عدو ويسو جرين أو محوها يتو جيبوتي ماشي كتارو يدناها إليها يبقول كاس من إثيوبيا مركي إسايين دبر فرفر يوتر سنسا لكن دبر فرفر ما جرين عادي كده استعماله سيء عادي ما أفورك لكن سما بنانا إن قناعسي هند كده الاستعمال أو لقد جستو وين بنانته مكو أقولي يمن تو كل جم حياة إثيوبيا تو كل جم حياة ورنك أنا نسوا ما يسموا هذا تكلينا أنا وحي جواني قعدنا بنندور دقائق على جوجل مدحض الصومالي مدحض جيبوتي سياسة أنك لا فرق سي وهالضد هالشعب هالقول بقنا النهاية مجارسيسنا مستوى وحكوس عضان وعصنا وطي شركة هذا كدعي بحر دار وها شراي مدحض dalalka Ethiopia Soomaaliya iyo Eritrea waxa kulanka sidoo kale joogay madaxweynaha gobolka Soomaalida ee Ethiopia ayaa asagana goobjoog ka ahaa maxay ahayd baahida iyo ujeedada loo keenay in halkaas maadaama asaga uu yahay qayb uun kamid ah ee dawladda Ethiopia hadda ay haysato qarnigii 15aad hadda joogtay jacda la isku hayay ilaa 78 ilaa hadda 9 maxay ka taagneed kilfaafi ka taagneed labo وحد بلوضي معه صوماليا مركللية وانا لققبي وانا لكالقيبي كالقيبي سكينا لكالقيبي وحو قاري إن مدون لو ديبو كاين لو ديبو إثيوبيا لو ديبو وياك ديار لي انتك نوكين ديبو حتى أهان سيدا وإذا سيدينينا أي هذا محاسات من لو يلاي ولكن انتبرتين إني حوجيس وعنا لسو قارسي دستور كدلتورة هاي هذا عن هاي اسمه بالقبلات تبرتنا لجوء قاي انتبه
waxa in cagjar loo geynayo ismaamul goboleedka maartay state of Somalia loo geynayo waxay tahay maxaa isku haynaa ninka Ethiopia ayada isku haynaa in marka uusan marti ka ahayn ayada naftirkeeda bulugley laga saaro iyada laftirkeeda sida loo heshiisiin lahaa shacbigaas oromada ah iyo shacbigaas Soomaalida ah hadeera dhiigeena daataa hadeera waxa la laayaa ilaa iyo meeso ilaa iyo maartay dhulka xigo oo dhan baabilo korkeeda oo dhan harar inta ku meersan ilaa ila garija waxa lagu sameeynayo waxa qof muslina oo ka diiro waa maxana la kasi wallahi orgi jabanna loo soo xiray budgeta Ethiopia laga siiyay dukaamada ganacsi dadka dhigooda dhuuqaysta ya 400 milyan budget loo shabay waxa loo geeyay oo kaga duwan yahay waxa isku hayno oo isku hayn doono waxay tahay Kilil 5 ama gobolka hadda loo bixiyay ismaamulka Soomaalida waa kama dhibcaan NFD waa kama dhibcaan si runta looga wada hadlo waa in la helaa geesinimo Afrika si ku xoroobaysa gumaysiga soo iskugu diray hadii dhaxta lama soconayso waa in Abiy Ahmed asqaas maskaxiisana kama marna in gobolkan Soomaali leedahay in si loo dejiyo Soomaali iyo Soomaaliya Kilil 5 iyo Soomaaliya Djibouti iyo Soomaaliya NFD iyo Soomaaliya sandulle maxay ku noqonaysaa ma harayna annaka mana ku harayno gal dagaalkii guushii haleele galbeed waa la xoreeyay warsa gagaxsi wala saluguma gam oo gulufku halkiisii geeyo Soomaaliya otay daawadayaal waxaan soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay ee barnaamijkeena diiradda kalsan oo toddobaadkan aan si gaar ah ugu falanqeynaynay isbedelada ka soconaya geeska Afrika gaar ahaan heshiisyada dhexmaraya dalalka Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea. barnaamijka waxaa igu marti ah Ustaad Cabdiruus Maxamed Cabdi Afsagaaro. waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena toddobaadkan markaan dib u fiirino Ethiopiaanka iyo walwalka Soomaalida ay ka qabaan generaaladooda marar badan waxay ka hadleen in aysan jirin sabab ay Ethiopia u ahaato badla'aan u ahaato hadallo noocaas oo kale rag saraakiil Ethiopiana ay ka hadleen generaalkii howlgabka ahaa ee dalka Sacuudiga Anwar Cishqi watii hadda ka hor uu tala ahaan u soo jeediyay in Soomaaliya la baabi'iyo oo lagu biiriyo Soomaaliya iyo Djibouti waxaan lagu biiriyo dalka Ethiopia lagu biiriyo oo hal dal weyn laga dhigo oo Ethiopia la yiraahdo oo Soomaaliya laga tiraba maabka oo tuusaas oo kale asagana ku hadlay marka arrimahaas markaan hore u ogeyn haddana aan ognahay in Sacuudiga iyo Imaaraadka labadaba oo cadaawad xun u haya dadka Soomaaliyeed wajina oo ku tusaya macnaha inay walaal leeyihiin laakiin munaafaqada iyo lugooyada ay sameynayaan ay ka tira badan tahay walaalnimada ay muujinayaan ay ku lug leeyihiin arrinkaas oo ay soo maalgeliyeen Abiy Ahmed si uu u fuliyo siyaasadda carabta ee Soomaaliya in la burburiyo ama la lugooyo ama qidado iyo khiyaanooyin loo dhiso dadka Soomaaliyeed waxaan ognahay inta badan inay yihiin dad xamaasi ah la kac badan Soomaalida shucuur badan si sahlan ku kaca haddana markii aan sii wadi karin xamaasadaas muddo dheer lagu yaqaano marka soo ma jiri karo sabab shaki weyn looga muujiyo arrimahan hadda Abiy Ahmed uu horbooday oo la yiraahdo war Soomaaliha ka digtoonaato arrimaha noocan oo kala waxay horseedi kartaa dhibaato soo gaadha qarnimada Soomaaliyeed oo dib looga shalaayo boqolkiiba waxaana daliil u ah aw Iraq aw Suuriya aw Lubnaan aw Yemen Libya aw waxaasoo dhan yaa burburinay Sacuudiya burburinay waxaasoo dhan yaa burburinay Imaaraadka burburinaysa waxaasoo dhan yaa gadaal ka taagnaa quwadda caalamiga qarsoon ka taagnayd laakiin midaan meeshaan taala Anwar Cishqi asalkiisa Farisi waana shaas uu Shiici ku yahay nin asxaab noo sameeyay ma macadku ka hadlayna macadku waxay Yahuudi isku iimaanaysa siyaasadda dhabta ee Sacuudiga lagu mashqiyaa asaga Turkul Faysal waxay ku hadlaan Soomaaliya waa inay ka digtoonaataa Soomaaliya waxba isuma noqon karno inta wuxuu yiri dalkeena saddex dabar ku xiran yahay dacalada madowta baanada ka dadan yahay inta China waxay aan dhihi jirin irdaha Djibouti xorood Djibouti waa Kilil 5 iyo haddaan run looga hadlin NFD waxba isuma noqon karno taas waxay diidaysaa heshiis kasta wada gaarno Arab
haddaa maanta talada soomaaliya meel ka soo gaari lahaa wallahi waa ka saari lahaa maxaa uga saari lahaa maxayna tartay inta aan dhulka ku jirnay waxba nama tarin turkiya intayna tarta namay tarin marka jaamacaddan carabta oon protocolaal ugu jirno nadba nad inaan ka baxnaa waxay ka fiican tahay inaan ku jirno waayo dhulkeeni kala qaybintiisii haddeer madaxweyne farmaajo wuxuu u tegi waayey oo u tega khayr waxay ahayd imaaraadkaa loo daayay somalilan wax noocaasaa meesha ku jira dadkii go-aankaas qaadan lahaa inay soomaaliya legacy uga tagaan dadka maanta jooga waaye waxaan rajaynayaa inaan lagu fududaanin waayo wuxuu yiri tiri inta nabarkaad ii wadan uu dudintaas ka muuqda qabriga walaalka arkayso abeesadii heshiis ma heshiin karno daawadayaal guud ahaana barnaamijkeennii diiradda kalsan ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay heshiisyada dhex maraya dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea iyo sababta ay uga maqan tahay dowladda aan walaalahanahay ee Djibouti iyo saameynta heshiisyadaasi ay ku yeelan karaan Soomaaliya inta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxa ay la qayb galay gudoomiyaha hay'adda Midday for Peace waa Ciidruus Maxamed Cabdi Afsagaaro anigu waa Ismaaciil Sheekh Khaliif intaan dib u kulmi doono toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabad geliyo